sheekooyinka horta bal ka waran sheekadan Xastoob iyo Ismaaciil wallahi waa dadkaas horta maanta xog badan ka heesaa horta Ismaaciil bal ka waran intuu ka soo bilaabo Ismaaciil saxaafadda wallahi أنا وناكسن daawadayaasha meel baa joogtaan muuqaal cusub iyo maanta waa marti weyn ay joogto channelkeena Xasaneer YouTube gudoomiyaha maan soo fariistay muxuu soo fariistay dad badan is weydiinay wuxuu soo fariistay wax kale ma ahan maalmahan waa la isku dhagnaa oo YouTube ka la isku dhagnaa sheekada waan guud gali doonaa horta Maxamed soo dhaweena soo dhaw asaar waa maasantahay waan ku dhawaay channelka ma ka horeysateen dadka subscribe-ki like saartiya taas ku orado ah bariyo ma ahan loo sii shaqeeyo soo jiro oo wali daawan ama la socon hadda arki doona channelkan la socon Soomaali waxa la xasuusiyaa ma sheekooyin badan ka hadli doona Maxamed oo ugu badan in badan YouTube ka la socod sheekooyinka horta bal ka waran sheekadan Xastoob iyo Ismaaciil wallahi waa sheekadan aad horta u haysta YouTube ka Ismaaciil iyo Xasan Toob aye runtii labadooda wax ka dhaxeeyo waa hadda ana ku soo caan bixiyay ana ka caansan walaas dadkaas horta maanta xog badan ka heesaa horta Ismaaciil bal ka waran Ismaaciil runtii muuqaal dawlad soo bandhigay waa daawanayay wuxuu soo cadeeyay macna in wariyo hore ahaa oo meel badan uu ka soo shaqeeyay balse qofku waxa jiray soo shaqeeyay oo muddo dheer soo shaqeeyay haddana caan ahayn oo soo shaqeeyna aan la aqoonin goorma barato horta Ismaaciil ana kulli waxa ku bartay durdurmeyn kugu horeysay markaa laakiin wuxuu la durdur ka hor caan ah wuxuu shaqeyn jiray oo noocaday durdur ka hor inuu wariyo ahaa muuqaal duubi jiray wariyo soo ahaa TV iyo social media ka soo muuqan jiray balse waxa way muhiimada meel baan isku bartaa marka waxa leedahay ninkaas durdur ay bartaanay marka aniga durdur ay bartay durdur media Xasan Toob lagaas wuxuu leeyahay Xastoob ana ka caansan u dhahay bal ka waran midaas wallahi wala caan horta waxa leeyahay qofka ka bulshada ki hor baratay hor taqaano Xastoob ka hor durdur media ka soo muuqan jiray soo aan dhinaciisa fadhin markii dambana shaqada bilaabay Xastoob durdur media ku soo biirsiyay saasana Ismaaciil ku marna kulli shakhsiyan كور ويا لقيا بدينا يعني لقي ضد أصحابه وكونيني لكن إن براه بشيء أو فافتور وصوب بندقو لقيا شيء ولقيا هالضو وهكذا دردر ميدي أي Xastoob كوران سجنا والله Xastoob شخصيا أنا وسنق أنا أيه سبراه بشيء أنا ضد كان قوة برنا وسنق دردر ميدي لكن كور شخصيا وسنق أنا إنه ديني وريا وشقيا يا كحافظ معها لكن سلوه مركي لو هي عسن كل أنا Xastoob إسماعيل وحلال ما أقاني Xastoob إسماعيل هذا متهم ميدي وكنت حنا وهذا وهرمون نفسه وهذا نتركيز قف معها لكن سمركي لي هذا حاجة ولا هذا الله لو يا عسن يا هربرتي أنا Xastoob حاجة ولا هذا أنتوا كسب بلا إسماعيل صاحب والله إسماعيل كله إذا عاد صوبني كرسي TV كم هاي إذا عاد كله اسمه جاي ما على يستي ونوشة جاي وورك أصلاً كرسي TV هاي يعني كي وهو إسماعيل إذا عاد كانوا وحالي لو تربطوني بالكورة والله ساعة أطيارة ساعتين وريه هاي دي سكجو جيو ونما وهو بدون بس يعني أصحاب Xastoob بسوي شقينجرين ما يعجبني طيب بقى كاس تربطوني قول لي ابغى تربطوني وما معلن عرق الطلياني اما معلن طلياني ولا شيء لو ما قاعد انا نستي سواء انك اصلا شيء قاعد معي كوي انه كيريا فلان ما قال لك عام مغلي تربطوني الله يفعل طبعا اذا عاد كسو دحي ninka soo kee ku sheegay inuu wariyo anaga hadda yaa sheegay laakiin inuu wariyo ahaan jiro oo Xasan Toob dadka iskuulada hayeen balse markii dambe saxaabada ay gaabsaday oo ciyaar xaafis ka noqday oo ilmo koris u galay
magaalkiisu ku jira ka haraa macnaha shaqooyinkii hayeen oo meel luuqa gala inuu kor isu daa haye ninka salaamaysa ke ninka ii sheegano ay balqoran arrintan kale oo xasto horta waa laga kala tagay dad badan oo soo saaray shirkad sideeda waa u dhisantaaba in shaqaale yimaado shaqaalana ka baxo shaqaale yimaado samdan dad markay meel isugu yimaadaan waa is qabtaan waxaa is qabasha imaanaysa isfahan waa imaanaysa hadda Ismaaciil wixii waxyaabihii xastob uu ku sheegay oo lahaa shaqada waa gulfaan waa kaga celiyay lacag laga soo diray dibadda u sheegay isaga dadahana wuu cunay dambi nagu tahay ma ka warqabno xasan noo sheegay lacagtaas ninkaas ku baxday kadib adiga wada shaqeynayno nimankaasna waa goosteen janaal gaar ah furteen nimanka YouTube maanta ugu sareeyay hadda labadood yaa khaldana isleedahay xasan Ismaaciil wallahi ana qalad hoose ma sheegi karo laakiin si ma inta daawat muuqaalada inta daawaday waxaa furtay ku horeeyay in dagaalka iyo macnaha soo garay karbaashida Ismaaciil waxaa leeyahay kulli qofka aniga ninkaas ku naqaan kulli meesha ku soo ambaxay waliba shakhsiyan asaga ku soo ambiyo ku dheeman laakiin shirkadda uu madaxda ka yahay uu joogay isagu ayaa ku soo ambaxday inaad ninkaas macnaha ka gaabsatay oo la saaxiibto oo leeshiisa oo isku tala noqotaan oo waa tiraado meesha aad iga soo horeeyay sida xagee wax ka bilowna xagee tan ka wada oo shirkad noqotaan hada samaxa kula talinaya markii Ismaaciilkaas Ismaaciil waxa kula talinaya inuu hadda ma sameyn karo ma kulli inta barabulsho soo horfayso ma sameyn karo adiga ceeb kugu tahay laakiin si hoose inuu la xaliyo wana qaladka mid aakhiriyay adduunyada anna iga raali gelay anna ka raali mana dad saxaabo oo YouTube leeyo oo camera wato oo mar buluuq soo laabanayo mar meel ka wada bariisanayna raali hadda riwaayada ugu badnaa ku daawatay maxaa ka xasuustaa Ismaaciil la riwaayada badan ka daawatay riwaayada waxaa daawan ku faqiir ku inta oo gabadh inta oo imaado taajirka noqonayo وكان سبب بالشلة أو يعني الدنيا هذا تقانع أو عبر المال بلوغ صاحب بالي نحن ما نتكلم أكيد سمك أرك الله يا الله يو نكسر عن معناها لو برتنا دام أنتوا بدين هذا أنا أنا معك كفاية أنا كجافت أنا مرة ما أستوى وجد جواب سواست وكسر مش وإحنا أحسن لكن وأنا أستوى وعاك سوق حتى إن الأفلق قاعد يوش لا عصبك غير وعريض عميك الحوين هاي بالحوين يعني قبيل قاعد يسوي شيء عصبني اسكفني مركو هلا قصر السياسة مثلا ودور معنا اسكفني أنا كاميرا شو كل جعلان عدوا ربنا وارد هذا أويس بافه وكذا دقوا في سكندة يعني أوكي ما أنا هذا بحسوب ارتاح طبعا كذا الرواية هذا صحفيز فدي أويس بافه كمبيوتر تطلع يا يقول نقط بروح عليها قف مدح أنا أركب نك عانك شقة بس لأني هذا صدر صدر وشو نقول أصلا أجر وتحكي markii laga tago ciyaar iyo camera iyo noocaas waxaa laga yaabaa ninkaas haddii noloshiisa bilaabo oo dhisto wixii isaga ka dambeeyey u qurxoonaato noloshaas inay ka bilaabatay fikirka xasato lahaa inuu ninkaan uu ka soo qaado dhulka hadda marka ugu dambeyn Ismaaciil waxaa leedahay ninkaan raali geliyo sidaas weli u raali geliyo kule soo fariisanaysa fadhi mo ka cabsanaa fadhi kule ma keligiis maaha aniga naftigeeda ugu dhacay xataa fadhi wadiidi laakiin sidaas waxaan dhihi lahaa مر مقال لو إن صوت طبعا ورنيك بس عارفين يسقط صوت قلتنا أما أساس خدنا ما يصدق منها مدين وما سنتها محمد واحد بدن كبحنا شيء كوين كمالمها يوتيوب كآد كلو هذا الهاي حسطوب إسماعيل وقدم بينه وحيل إسماعيل بالله اللي قلنا بحيو ما دام صاحب كيس حرام ماشى كان وكقل دمي sheekooyin kale xiisa badan oo daawan doontaan laakiin muuqaalkeena maanta inta isku eegaya muuqaalo kale oo daawan doontaan fadlan daa ku cusub tahay channelkan subscribe dheh maxamed maxaa leedahay sida hore loo bilaabay YouTube season wuxuu sameeyay subscribe lisa horta dhibma subscribe-ka dhibma oo aad u fudud yahay qofka inuu ku garto waxa horta cilmi u leeyahay faahfaahsan hadda waxa laga yaabaa subscribe inay saaraan labada muuqaal kan hadana way ka qaadayaan subscribe ku cilmiya bariu ka baa inta soo laabada
marka camaleen saaqooni dadkaas marka halay subscribe meesha guudka cadaan ka dhig gabalkan iska fursay muuqaalka adiga u arko kugu hor soo hormaro hadii adiga adana ka xiisaysana waa booqan kartaa oo channelkan ee muuqaalo kale xiisa badan oo soo socdaan oo challenge ku jiro nabadgelyo